kulan wacan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallada ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka hawlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. anigu Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. barnaamijkeena toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay abaaraha dalka ka jira iyo sida ay u saameeyeen nolosha dadka iyo ganacsiga. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah abaarta ka jirta gobolka Shabeellaha Dhexe oo saameyn ku yeelatay dadka ku nool qaybo ka mid ah degmooyinka gobolkaas. dadkii ganacsigooda uu ku tiirsanaa xoolaha oo sudhac weyn dareemaya sabab la xiriira abaarta ka jirta gobolka Galgaduud iyo warbixin aan idinkaga hayno dadkii ay abaarta ka leysay xoolaha oo nolol xumo ku wajahaya kaamka ugu weyn ee barakacayaasha Kismaayo oo ay ku nool yihiin hadda. aan ku bilownay abaarta ka jirta guud ahaan dalka ayaa saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada iyadoo meelaha qaar laga soo wariyay in dad ay u geeriyoodeen. gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah meelaha ay abaaruhu ka jiraan ayaa si gaar ah waxa ay saameysay dadka iyadoo ay dhamaadeen xoolihii ay dhaqan jireen sidoo kalena aysan waxba tacban maadaama uusan roob ku filan ka dayn si la mid ahna webiga uu guran yahay. dadka ayaa sheegay in ay galeen nolol aysan u baran tan iyo markii abaartu ay ku habsatay. Qaasim Karaama ayaa soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa. qiyaastii 5,500 oo qoys ayaa xilligan deegaanada iyo degmooyinka u dhow magaalada Jowhar ee caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe oo beeraley ah ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii ay ka quusteen tacabka beerihii ay lahaayeen sabab la xiriira roob yarida jirta. Fartuun Xasan Aadan oo beer 20 hektar ah ku leh deegaanka Mayko oo 1 kiiloomitir dhinaca koonfur bari ka xiga magaalada Jowhar ayaa sheegtay in beertada u xayiran tahay roob yarida haysata. waxay intaas ku dartay in markii ay weysay dhaqaale ay siiso cagafka beeraha lagu diyaariyo inay dantu ku xambaartay inay gacanteeda ku banayso 2 hektar. Fartuun ayaa sheegtay in bishii labaad ee sanadkan ay beertada uga soo go'een galley iyo yaanyo aan badnayn hase yeeshee aysan ka helin dhaqaale fiican. wax soo saarkeedina waxaa hoos u dhigay biyo yarida webiga Shabeelle. waxay tilmaamtay in bishii May ee sanadkii hore beertada ay ka baabi'isay fatahaadu sami webiga Shabeelle. waxa ay sheegtay inay ku rajo weyneed in dhaqaale fiican meel ka dhigato dalagii ay tacbatay deyrtii hore balse waxay xustay inaysan taas u dhaboobin. caqabada tacabka beerta ka haysatay Fartuun waxay horseeday in 3 bil ee ugu dambeysay ay deyn ku qaadato raashinka carruurta ay sii lahayd. beerta waa geed qaadnay laakiinse waa xirxirnay cagaf inaan helnaa noogu sii fiicnaa lahayd. shidaalkii qaali waaye matooradii wax lagu shuwaayo ma leh. hadda waxaa noo daran matoorada wax lagu shuwaayana ma leh. abuurka waa heli karnaa laakiin dhibaatada weyn oo haysato shidaalka waaye. beeraha xoogooda waxay u dhinteen bishii Maarso biyo la'aan wixii soo baxeen cusbay naqdeen culays weyn naga haystaa. beerta cayaanka diska ka dilo oo ka dhamay anakana deenan soo qaadanay haddii oo beerta cayaanka dilo hadda iko bilaab iyo geed qaaday noqonaysa anakan dhibaatay noo tahay. beeraley badan ayaa rajo ka qabin inay beerahooda tacbadaan xilli roobaadkan abaarta jirta iyo shidaalka qaaliyoobay darteed. waxaa ka mid ah Maxamuud Cali Cariif oo ku nool degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe. beertiisa ayuu sheegay inay tahay waxa kaliya ee nolol maalmeedka qoyskiisa uu ka soo saaro isaga oo deyn badan lagu leeyahay ayuu haddana isku dayaa inuu wax tacbado. Maxamuud oo beertiisa ay tahay 9 hektar ayaa tilmaamay in beerihii ay noqdeen culays iyo khasaaro isdaba joog ah taas oo si adkaysay nolosha qoyskiisa. waxa uu sheegay in bilihii abaaraha uu fursad dhaqaale ka helay caws oo beerta hore ugu abuuray oo ugu talagalay in waqtiga adag uu kaga baxo. xoolo dhaqatada ay saameeyeen abaaraha ayaa ka iibsan jiray soo uu sheegay. dalagyada ay beertaan dadka beer qodatada ah waxay u baahan yihiin xoog badan oo lagu bixiyo bilow ilaa dhamaad iyo waraab dhowr jeer ah. niyo dib aan beerta ku qabnaa ugul waa ku iska noolaan xoolaan iska gada jirnay beeraan iska tacbi jirnay beertiina tacbay rabtaa ilmihii guriga rabaan
haddana cirka siduu yiri waxaan dabcan haddana beertii inaan ku sii noqono dee anigoo qabna hadda dukaaminkii aan tagnay nimankii waxay yireen tii hore waa qabtiine tan ilaahan qabnaa ilaah waxu keenay hadda cirkii waa yimid webigiina waa soo socdaa waxaan jecelnahay in anaga beertii aan tacabno sidii deentii lagu lahay iyo wixii walaal adig wixii ma isku filna laakiin anaga hadda waxaan damacsanahay in beertii inaan tacabno oo wax ka raadino bocoran ugu baxay nyaanyan ugu bixisi diiran ugu bixisi adig waxaasa iska macbilaysahay beerta naas way oo la nuugay mar walba waxbaa ka soo baxay ilmaha waa ku dhaqaalay jirna Sayid Cali Yuusuf oo ah khabiir dhanka beeraha ayaa Soma u sheegay in xilligan oo kale beeralayda looga baahan yahay inay abuurtaan dalagyada adkeysiga u leh biyo la'aanta si ay uga maarmaan waraabka. Waxa uu xusay Sayid Cali in beeralayda uu kula talinayo inay ka niyijibin tacbashada beeraha haddii ay heli karaan abuur wanaagsan oo ay tahayba inay ka faa'iideystaan tacbashada xilli roobaadka. duruufaha adag ee haysta beeralayda Shabeellaha Dhexe ayaa loo aaneynayaa sanado badan oo isxigxigay oo ay abaaro jireen oo soo dhaca biyaha webiga Shabeelle taas oo sababtay inuu yaraado wax soo saarka beeraha. waxaa fiican in loo wareego habab waraabka lagu yareyn karo sida in la badiyo tacabka dalagyada dulqaadka u leh biyo la'aanta sidoo kale solar cidii helaysa ha raadsato solar in loo guuro aad ayuu ugu wanaagsan yahay deegaanka sidoo kale dalagyada dulqaadka u leh biyo la'aanta waxaa ka mid ah qaraha oo wuxuu u baahan yahay biyo 3 ilaa 4 mar sidoo kale masagada ayaa ka mid ah kuwa dulqaadka u leh biyo yarida. waxaa jira boqolaal ka mid ah beeralayda yaryar oo magaalada Jowhar u soo galay xoogsi kadib markii ay ka rajo beeleen beerihii ay ku tiirsanaayeen. waa mahadsan yahay Qaasim oo warbixintaas nala socodsiinayay. dhinaca kale waxaa jira ganacsato ku tiirsanaa dadka reer miyiga ee ku nool baadiyaha gobolka Galgaduud kuwaas oo suuqa xoolaha ee gobolkaas keeni jiray xoolaha si ay u iibsadaan halka kuwa kalena ay u soo safrin jireen caanaha ama laga doonan jiray maadaama ay xoolihii abaarta ka laysay arrintan waxa ay meesha ka saartay ganacsiga oo dadkii ku tiirsanaa ay xilligan yihiin kuwa shaqo la'aan ah. Farxaan Axmed oo Gurceel jooga ayaa warbixintan nooga soo diray. roob la'aan ka jirtay deegaanada Laas Xaadow Xanan Buure iyo Olol 3 sano ee la soo dhaafay ayaa keentay in dadka iyo dunyaduba ay si weyn u taabato abaartu si gaar ah dadkii ka shaqayn jiray ganacsiga ku tiirsan reer miyiga xoolo dhaqatada ah kuwa oo hadda qaarkood wajahaya shaqo yari xoogan. Mira Cabdullaahi Axmed oo in ka badan 10 sano ahaa kadisley xoolo dhaqatada ka iibsada xoolaha kadibna suuqa ka sii iibsada ayaa sheegay in abaartan oo kale aysan soo marin halka uu ku nool yahay ayna tahay markii ugu horeysay saameynta abaarta laga dareemo gudaha magaalada Dhuusamareeb haddana aysan u shaqaynaynin sidii hore tan iyo markii abaartu ay ku dhufatay deegaanada miyiga ah. waxa uu xusay in suuqa Dhuusamareeb hadda maalinkii wax ka yar 5 neef oo aan lacag badan laga bixin karin ka iibsado reer miyiga kadibna ku qaadato inuu naaxiyo si uu u helo dhaqaale fiican balse markii hore uu ka iibsan jiray tiro u dhaxaysa 30 ilaa 40 neef oo xitaa uu ka sii iibin jiray magaalooyin ka baxsan Dhuusamareeb oo ay ka mid tahay Gaalkacyo. Mira ayaa tilmaamay in maalmaha qaar aysan shaqaynin maadaama ay waayeen xoolo ay soo iibiyaan taa oo keentay in meesha ay ka baxdo biilka reeraha isaga iyo dhowr qof oo kale oo suuqa kala shaqeeya. ari xoolo badan ay iibsan jirnay markaas xoolaha ima jiray xoolo dhig la ima jiray neef waxa laga yaabaa in maalintii 30 neef ama 25 neef 10 neef inaan gada jirnay markaan u yaraano haddana waxaan gadnaa wax yar oo ama 5 ama 7 meelahaas waxay ugu yeelatay aniga saameyn aad weyn ugu yeelatay sababtoo tahay maalintan xoolo fiican gato waxaan magaalada kala hoyaa jiray suuqa xoolo ag fiican haddana waxaan kala hoyaa wax aan qadarkii awal aan kala hoyaa jiray aan dhamayn oo ka hooseeyo waxaan leeyahay dadka si la isugu hoos noolaado anna qolo hoos ku noolaato qolo u taakuleeyo dadku in xoolaha beeca dhimriyaan dadka wax gadanaya oo aan kamid ahay ay beeca iyaga laftirkooda dhimriyaan qofkaas ay u roonaadaan xoolaha wado abaaraysan. sidoo kale abaarta ganacsiga ay saameysay waxaa ka mid ah dadkii ka ganacsan jiray iibka caanaha xoolaha ee kaga imaan jiray baadiyaha kuwa oo hadda ay soo wajahday xaalad shaqo yari oo iyo Xabiibo Aadan Xasan waxa ay ku tiirsaneed shaqadeedu iibka caanaha xoolaha muddo 10 sano ah laakiin markaan waxa soo wajahday shaqo aan joogto ahayn kadib markii ay gabaabsi noqdeen caanihii magaalada
kaga imaan jiray duleedkeeda. Waxa ay Sooma u sheegtay in hadda mararka qaar ay doontaan meel aan aad uga fogeyn Dhuusamareeb caanaha mararna ay soo waayaan halka mararka qaarna ay soo helaan dhowr liitar oo aan badnayn kuwaasi oo ay kasoo iibiyaan dadka u baahan sidoo kalena aysan jirin shaqo kale oo ay ku tiirsan tahay nolosha qoyskeedu. Hooyo Xabiibo waxa ay tilmaantay in laba ka mid ah carruurteeda ay ka bixin jirtay lacagaha iskuulka halka wiilkeeda curadkana ay kaga bixin jirtay jaamacad. Lacagaha ay kaga hesho iibka caanaha oo ay hadda awoodi leedahay oo wiilkeeda jaamacadda dhigta ay qaraabadu qofba bil ka bixiso. anigu waxaan gedi jiray caano ka ganacsadaa caanihiina waa la waayay abaaraa dadkii xoolihii saamaysay meeshii 15 caag la ii keeni jiray hadda 5 caagaa la keenaa 5tii caagna waa qaali oo dadkii gada jiray waa gada waayeen marka hoos u dhac weyn ayay abaartu ay saan nagu keentay aad bay hoos u dhac weyn nagu yimid caagad dawla waxa la ii keeni jiray $3 bar hadda 5 iyo bar lagu keenaa caagad caanaha 5 iyo 10 caag markaan ugu markii kalena waxa la ii keeni jiray 12 adigu 5 caag la ii keeni jiray waxay ka kooban yihiin 10 qofood adooga iyo aniga iyo 8 carruur aan caanaha ka biilo jiray dugsi ka bixi jiray walba ka dabara jirin waa walahi ilaahay dad waxaan nahay noolnool iska noolnahay waa deyn ku gaar marka xaaladaasan ku sugan deyn ku gaar haddii hal caag la keen halkaas caagaan maanta dhaqsuuqa la jooga haddii soo gad mooyaan waxaan warcab idinku cawada. Deegaano badan oo ka mid ah Galmudug ayay ka jirtaa isku dayo badan oo qaar ka mid ah dadka ay saameysay abaarta lagu gaarsiinayo macaawino sida ay Sooma u sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug. Maxamed Axmed oo ah u qaabilsanaha suuqyada xoolaha ee wasaaradda ganacsiga Galmudug ayaa sheegay in maamul ahaan ay sameeyeen dadaal ay rabeen in kab loogu sameeyo ganacsatada ay saameysay abaartu balse aysan jirin tallaabo ay qaadeen maadaama hadda deegaano ka tirsan Galmudug ay ka jirto dagaalo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Galmudug. Waxa uu tilmaamay in ay jiraan guddi ganacsi oo ku howlan si isxilqaan ah isugu gurmadaan xilligan adag una gurmadeen dadka abaaruhu saameeyeen deegaanada miyiga ah kuwa oo waayay xoolo ay u soo safarsadaan suuqyada gobolka Galgaduud. guddiye waxaa jiraan ayaga inta badan aan isla shaqeyno oo ayaga dhexdoodana isku gargaaraan annagana aan ka warheyno in kuwa hadeertaan samaysan ee ururadan taakuleeya ganacsatada iyo ayaga dhexdooda iscaawiya annagana aan gaari doono deegaano kale si micnaha deegaanada Galmudug oo dhan xaaladda ka jirta dhanka ganacsiga ay u noqoto mid wasaaraddu ay markasta ay ka warheydo. weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. haddaba iyadoo ay jiraan saameyntaas ka dhalatay abaarta ayay dadka waxa ay go'aansadeen in ay ku noolaadaan xeryaha dadka soo barakacay kuwaas oo hadda ku wajahaya nolol aan wanaagsanayn. gobolka Jubbada Hoose dadkii ku noolaa ee sida xoogan u saameysay abaarta ayaa maciin biday inay ku noolaadaan xeryaha dadka soo barakacay ee ku yaala Kismaayo. Cabdullaahi Cabdixakiin ayaa soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa. boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada maamulka Jubbaland ayaa hooyilaan waxbarasho la'aan cunno yari iyo biyo yari ku wajahaya xeryo barakacayaal oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo halkaasi oo ay soo gaareen 2 bilood ee ugu dambeeyay. Niila Cabdi Aadan oo ka mid ah dadka deegaanka Laanabaar oo hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ee abaartu ka dishay 26 neef oo ari ah iyo 27 neef oo lo ah ayaa soo gaaray kaamka Kulmiye horaantii bishii Janaayo ee sanadkan. Waxa uu tilmaamay in dhibaatada hooyila'aanta iyo cunno xumada ay ugu darsantay in carruurtiisa oo qaarkood ay dhiganayeen dugsi quraan aysan hadda haysan meel ay wax ka bartaan. Niile oo ka mid ah dadka ay sida xoogan abaartu u saamaysay ayaa sheegay inuusan awoodin in carruurtiisa uu geeyo iskuul. Waxa uu intaasi ku daray inuu la daalaadhacayo sidii uu u heli lahaa nolol maalmeedka qoyskiisa ayna ku adkaatay in carruurtiisa iskuul ay helaan. Niile hadda ma hayo wax shaqo qoyskiisuna waxa ay ku tiirsan yihiin xaaskiisa oo dadka deegaanka u soo dhaqda dharka maalintiina ka hesha $2 ilaa $3 iyadoo mararka qaar ay soo weydo oo aan reerka dab loo shidin. kaamka Kulmiye oo hadda degan yahay aabaniin Niile ayaa qoyskiisu dadka kala siman yahay waxbarasho la'aanta haysata carruurtooda waxaana uu codsaday in dadka wax haysta ay gacan qabtaan. maya waxbarasho hadgeey male
waa u baahan yihiin waxbarashada kulley ilaa maxadle kulley waa sida ilaahay qadari kuubu kibir iyo dhisheeg agtiisa ku soo barakacne hoolo wixii qabnay waa naga dhammaadeen maanta iriideeda wax anaga haysana ma jirta waa u baahana inuu noo soo gargaaro gudoomiyaha kaamka kulmiye ee magaalada Kismaayo Nimco Xaashi Cismaan ayaa sheegtay inay soo gaareen 2 bilood ee la soo dhaafay 12 qoys oo cusub oo ka kala yimid Bu'aale Janaay Cabdalle Harawi iyo Laanabar oo ay ka soo carareen abaar iyo colaad isbiirsatay waxa ay tilmaantay in ka maamulahan iyaga iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay dadka qaarkood ka caawiyeen inay helaan aqal cusub halka qoysaska kalena ay hadda dulsaar ku yihiin kuwii horay u sii deganaa kaamka Nimco ayaa xustay in qayladaan ay u dirtay cid kasta oo ay arrintan khusayso haddii ay noqoto dawladda iyo hay'adaha si loo taageero dadka ay abaartu cayrtaysay ee Kismaayo ku soo barakacay kuwaasi oo aan haysan nolol iyo waxbarasho toona dadkan waxbarashay u baahan yihiin cunnadii bay u baahan yihiin biyihii bay u baahan yihiin hoygii bay u baahan yihiin dad aad u dhibaataysan Xaliime Aadan Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka ay abaartu saamaysay waa beeraley roob la'aan haysay muddo 2 sano ah ayaa sababtay in ay ka soo cararto deegaanka Haraawa oo beerihii ay wax ka soo bixi waayeen waxa ay sidoo kale sheegtay in roob la'aantu ay ugu darsantay colaad ka jirtay halkii ay ku noolaayeen maadaama ay u cabsadeen inay waxyeello ka soo gaarto dirirta kadibna ay go'aansadeen inay ka soo tagaan waxa ay tilmaantay beerteeda oo 3 hektar ahayd aysan ka soo in wax dalag ah 2 sano ee la soo dhaafay maadaama wax soo saarka deegaanka ay ku noolayd oo ku tiirsanaa roobka Xaliime iyo qoyskeeda ayaa muddo 4 maalin ah wadada ku soo jiray iyagoo ka soo tagay xitaa qayb ka mid ah alaabahoodii guriga u yaalay oo ay qaadi waayeen waxa ay xustay in ku dhawaad 10 maalin oo ay kaamka ku sugan yihiin ay dulsaar ku yihiin reer kale oo ka soo horeeyay anagoo wareersan oo markas soo degno oo meel aan ku tagin aan la asanahay amaamada ayna qabatay ee boos iyo cajaf iyo waxa iyo gacan qabad xoog leh noo suubisay hadda jaqafkan saas darteeda u dhisana ilmaha ugu xareysan ilmihi waxbarasho la'aan Nimco Xaashi Cismaan gudoomiyaha kaamka kulmiye oo ka hadashay xaaladda barakacayaasha ayaa sheegtay in kaamka ay horay u buux dhaafiyeen dad barakacayaal isla markaana hadda ay soo gaareen dad ka soo cararay abaaraha kuwaasi oo culays ku sii ah xaaladii nololeed ee kaamka ka jirtay gudoomiye Nimco ayaa dhinaca kale sheegtay in dadkan ay abaartu cayrtaysay aad u dhibaataysan yihiin oo xitaa aysan haysan dhar iyo kaba wax la cunay iska daayay gudoomiyuhu waxa ay sheegtay in ay ku dadaaleen bal in la helo meel ay dadku seexdaan iyo waxa ay cunaan inta xaalku isbedelayo dadka aan baahidooda wada dabooli karin inii aan meelahay biyaha ka soo dhaansan lahaayeen hadda tusaale ahaan wadkaas dadkaasa kamid ahaa maamada dhabarka jeergaanka biyaha ku wada kamid ah dadka barakaca ee cusub ee ila soo degay waxaan sameeyay inaan tuso meelihii biyaha ay ka dhaansan lahaayeen ayagoo aan haysanin shilin ay ku gataan Cabdullaahi Cabdixakiin barnaamijka wadaagga Sooma Kismaayo intaas ayaan maantana ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma waxaase dhagaystayaal idinkaga tagayaa su'aasha ah sidee loo yareyn karaa tacadiyada ka dhaca xerooyinka ay degan yihiin dadka soo barakacay nala wadaag aragtidaada iyo su'aasha qabto adiga oo la soo xiriiraya taleefannada idaacadan mahadsanidin